يزال المجد يوما للوطن إن أرادوا أهل أرضي بالعلوم لا يكون العلم إلا رافعا كم ذليلا صار نجما بالعلوم كل شخص قد ينادي سيدي ذاك علم دون مال قد علم كم ذليلا صار نجما بالعلوم كل شخص قد ينادي سيدي ذاك علم دون مال قد علم هاك نجما لاح أرضي لامعا كم أحب شيخنا عبد الرشيد لو سمعت ابن صوفي قارئا بالبروج والمعارج راتلا قد أرحت بالقلوب ضنكا بيش سيديدات لبكن إيا لباتن وحنا لكن وجوغنا إن أن سو دوينو علماء واوين وهريو الشيخ الوالد الشيخ محمد الشيخ عمر درير الشيخ الدكتور شيخ علي شيخ حسن شيخ علي ورسمة الشيخ الدكتور دكتور أحمد جامع إسماعيل مرة إيه دمان مرتزة كرامة له قيمة له شيخ مهد محمد إلهي سبحانه وتعالى علماء oo ka soo kici timay magaalada Boohoodle iyagoo uga qayb galay nadwo cilmiyeed halka ka dhacday halkan iyagoo u socodkooda ku wajahan yahay si ay uga qayb galaan ama ay waxa weeyaan inuu ugu faa'iideeyaan hadaynu nahay deegaanka ama gobolka Sool magaalada Laascaanood nadwo cilmiyeed kale oo sanadla ah magaalada ka qabsoonta waxaan leenahay culimada soo dhawaada alla mahadi kadib waxaan u mahad celinaynaa oo soo dhaweynaynaa culimada khiyaarta ah ee xaqiiqatan naga mudan wax weyn oo xaq ah oo haday naga maqnaayeen oo naga fogaayeen haday noo yimaadeenba culimadeeni ahaayo cilmiga iyo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala faafinteeda ku hawlana oo sida la sheegay Sheikh Maxamed Sheikh Umar Dirir uu hogaaminayay iyo Dr. Xasan Sheikh Ali Warsame iyo Dr. Ahmed Jaamac Ismaaciil Mire iyo Sheikh Mahad dhamaantood iyo culimada dambe oo soo socota oo waa hordhici culimada laakiin culimada inoo iman doonto inta waa ka badan yihiin reer Laascaanoodna waxa laga rajaynayaa ka faa'iideysi wanaagsan iyo insha Allah ta'ala soo dhaweyn weyn oo ay u leeyihiin culimada iyo ahlul cilmiga ayaga u mudan in la soo dhaweeyo kan waxaan leenahay ku soo dhawaada gurigiinni deegaankiinni gobolkiinni dad insha Allah ta'ala aad iyo aad idin sugayay insha Allah ta'ala khayrkay wanaaga wadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu nagu anfaco dhamaanteen aan rajaynayno insha Allah ta'ala dadka deegaankana waxaan ugu boorinaynaa oo aan ugu baaqaynaa khayrka Ilaahay inala soo doonto subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay walaalayaal ku soo dhawaada magaaladii Laascaanood magaaladii iyaduna waa hooyadii dacwadda dadka Soomaaliga ku hadla waxaanu aad iyo aad aanu maanta ugu faraxsanahay nimaantika aad noo timaadeen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo noo nabad keenay waxaan haddii alla idmo annaguna aanu ballan qaadaynaa tawjiihaadka iyo dardaaranka iyo wacdiga iyo khayrka aad la socotaan inaanu meel adag aanu haddii alla idmo aanu gelino aad iyo aad ba walaalayaal mahadsantihiin soo dhaweynta iyo bacadka xooga muddada taagnaydeen marka waa ku faraxsanahay annaguna inaan idin nimaadno malaha xooga un baan idinka yara raagno imka dhowr iyo 10 sano maaliman halkan marka malaha saasunba ayba rag uu soo batay koleyna wana yara gaadeeno waxaan islaayday magaaladii baynu ayadin ugu tagay odayaasha meel dhaxun baan naga soo kaakacday idinka farabada maana filay soo dhaweynta inta la eegiyo marka kalgacal un bay sheegaysaa iyo xiiso marka aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaynu soranaynana waxaynu isla tagi doonaa insha Allah magaalada dhexdeeda Allah idin barakeeyo dalka iyo dadka iyo idinkaba iyo dacwadaba Allah inoo barakeeyo jazaakumullahu khayran wa barakallahu